filimkeena waxa uu ku bilaabmaya Yangishi waa gabadh aad u xisaysa orodada dhaadheer balse hooyadeed ayaa ku caawinaysa in iyadu orado oo isku daydo orodka dhaadheer haddii ay ka soo baxdo orodkaasna oo waqti ugu kooban ku carartana ay u iibinayso baaskiilad Yangishi waxay bilaabaysaa inay orado halkaas ay ku ordiso waqtiga ugu koobnaa Liu ayaa caawinaya oo u soo qaadaya guriga maadaama ay aad u daashay oo waqti badan ay ordasay Yangishi ayaa waxa uu keenaysaa hooyadeed waqtigii ay ugu gaabnaa ku carartay timerkii balse hooyadeed way iska indhatiraysaa Yangishi ayaa xaga u jeesanaysa balse hooyadeed waxay warqad ugu ridaysaa lacagtii ay ku soo iibsan lahayd baaskiilka halkaas oo Yangishi ay aad u faraxso balse Yangishi qalad bay sameynaysaa oo Liu ay ku oranaysaa ma raacisid Liu marka dambe ay waxa u diraysaa warqad raaligelin halkaas oo ay warqad raaligelintu ka aqbalay Liu balse waxaan aragnaa aroortii dambe iyagoo sawir ku galay baaskiilada cusbeed ee Yangishi soo iibsatay halkaas oo iyagoo sawirada ku galaya aan uga jeedno nin tuuga oo isku dayay inuu xado baaskiilada Yangishi balse Yangishi iyo asxaabteedu war uma hayaan halkaas oo ay ku buuqsan yihiin Yangishi ayaa mar kaliya ku baraarugaysa iyadoo baaskiiladeedii la xaday halkaas oo ay ninkii soo qabanayso Yangishi baaskiiladii ayay ka dhacaysaa halkaasna waxa ku soo gaaraya dhaawac asxaabteedii ayaa u imanaya iyadoo dhaawac ah balse waxay isku dayayaan inay maareeyaan oo ay ka qariyaan waalidka halkaas oo ay guriga geenayaan waxaynu aragnaa maalinkii dambe macallinkii oo soo galay galaaska halkaas oo Yangishi kicinayo maadaama Yangishi ay aad uga hooseyso waxbarashada oo ay ku liidato laakiinse ay aad u xisayso orodada dhaadheer Yangishi ayaa macallinka u sheegaysa inay jirto wax kale ay ku fiican tahay balse ay waxbarashada inay ku wanaagsaneyn macallinka ayaa ka oranaya Yangishi iska fadhiiso balse waxaynu aragnaa Khabiyo oo ah arday cusub ardaydu way aad u wada jeclaysanayaan ardaygan inuu qof walba la fadhiiso balse wuxuu la fadhiistay Yangishi ayaa waxay ka xanaaqaysaa Khabiyo oo la ciyaaraya arday kale balse waxay isku dayaysaa inay marsi keento halkaas oo ay Khabiyo sidii ugu tagi lahayd balse Khabiyo markii uu arkay iyadoo dhaawaca uu soo qaadaya waxa uu keenayaa dhakhtarka halkaas oo la rabo in lagu dhayo lugtii uu dhaawac ka soo gaaray balse Khabiyo ayay qaniinaysaa gacantiisa halkaas oo xanuun daran uu dareemayay isaguna balse markii qaniinta gacantiisa ayaa waxa uu sameynaysaa ilkii ama nabur bay u sameynaysaa Khabiyo waxba uma arkayo balse waxa uu sheegaysaa kalkaalsadu inayna mar dambe ordi karin maadaama ay lugtu aad u xanuunayso waxaynu aragnaa macallinkii oo haysta Khabiyo iyo Yangishi maadaama ay ka saabsaameen examka balse macallinku fursad kale ayuu u siinayaa oo waxa uu ka oranayaa gala imtixaanka halkaas oo imtixaankooda galayaan Liu kuma faraxsana maadaama Yangishi ay la fadhido Khabiyo halkaas oo macallinku ka dareemayo inuu cadhaysan yahay una weydiinayo sababta waxa jira balse Liu habeenimadaasi soo kaxaynaya Yangishi halkaas oo isku dul dhacayaan halkaas oo Yangishi ka cadhoonayso waxa uu sameeyay balse aroortii dambe waxaan aragnaa Khabiyo oo si qurux badan ama si jaleeco leh u eegaya Yangishi balse halkaas oo Liu ka sii cadhoonayo arrinkaasi balse Khabiyo isagu wax dhib ah uma arko halkaas uu ka sasaabaya macallinka warqadiisii inuu siiyo kadib warqadiisii imtixaanka ayaa la siiyay Liu halkaas oo imtixaankii dib ugu galayo maadaama shalay ka cadhoonayay halkaas oo Yangishi isku dayayso inay farxad geliso Liu waxaan aragnaa Khabiyo oo ardaydu u saaxiibaynaysa maadaama uu yahay ardaygii ugu sareeyay galaaska halkaas oo Liu iyo Khabiyo ay ku heshiinayaan ayna noqonayaan saaxiibo Yangishi ayaa aad ugu faraxsan arrinkaasi oo ay kamid tahay midkii waxyaabay rajaynaysay Khabiyo waxa arkaan inuu isku diyaarinayo inuu u baxo wadanka dibadiisa halkaas oo ay la soo hadlayso Yangishi saaxiibadeed oo waxa uu sheegaysaa been balse markuu yimaado Khabiyo wuxuu arkayaa in labadoodii ay wada joogaan halkaasi balse markuu arko gurigoogii oo qayb kamid ah gubanaya uu ka yimiday balse Yangishi ayaa waxa isku dayaysaa inay raali geliso isna uu ka diiday raaligelintii halkaas oo markii dambe guriga ugu imanayso Khabiyo ayay guriga ugu timaado raali gelisa halkaas oo ay ka qaadato dharkii guriga yaalay si ay u hagaajiso Khabiyo isna guriga qayb kamid ah ayuu hagaajinayay markuu daalay ayaa u seexday isna uu hagaajiyay balse waxaan aragnaa Khabiyo iyo asxaabtiisii oo tagay iskoolka halkaas oo markay yimaadeen iskoolka ay arkayaan ardaydii galaaska oo ku dhaga hadlaya Yangishi ayaa mid kamid ah ardaydii soo qabatay halkaas ay isku dayay ardayda inuu kala dhex galo balse way suurto gali weyday waxaynu aragnaa Khabiyo iyo Liu oo gurigii hagaajinaya balse ay iska wareysanayaan maadaama ay noqdeen dad saaxiib ah oo halka ku heshiiyay oo xurguftii ka dhaxaysay iska ilaabeen hal mar ayuu gurigii la soo dumiyaa Khabiyo
iyo Liu halkaas ay dhulka ku soo dhacayaan. Maalinkii dambe waxaynu aragnaa macalinka oo u sharaxaya sidii loo qaban lahaa xafladaasi oo la iskugu iman doono, balse nin walba waxa loo xil saaray wax gaar ah. Halkaas oo Liu loo xil saaray inuu hagaajiyo baaskiilada, balse wuxuu baloonada ka saaraya gabadha kursiga ku ciyaaraysay. Halkaas oo gabadhii markii dambe ay soo dhacayso oo ay lugta wax ka noqonayso, balse Liu wuxuu isku dayay inuu dhakhtarka geeyo gabadhii, laakiinse wuxuu iloobayay baloonadii ku xidhay baaskiilada. Halkaas oo markuu iloobo xafladii la geenay baaskiiladii bilaa baloona, kadib waxaa dhacaysa baaskiiladii in bilaa baloon ay noqoto. Halkaas oo Liu iyo isku soo dul dhacayaan. Kadib markay isku soo dul dhacaan halkaas oo dhunkasho ka dhacayso, balse Khabiyo wuxuu isku dayayaa inuu u sheego in waxaas ayna ka ahayn arrintaas inayna ahayn mid uu ku talagalay, balse Khabiyo iyo Yang Shi ayaa waxay noqonayaan dad aad u saaxiiba oo aad iskugu soo dhawaada intii hore in ka badan. Waxay noqonayaan dad sheeko wadaaga oo mar walba meelaha ku sheekaysta oo dad aad iskugu soo dhow. Liu ayaa Yang Shi ku canaanaya maadaama ay habeen walba baxdo, taasoo uu uga digayo inayna habeen walba bixin, balse waxaa maqlaya aabihii. Halkaas oo aabihii ku canaanayo ku odhanayo maxaa kaa galay, iska nabadgeli. Balse waxaynu aragnaa xaggaas Khabiyo oo ayadii mid sakhraansan oo uu suuqa dhexdiisa wax kaga qaatay maadaama ayadii tahay mid dagaala. Khabiyo ayaa wuxuu isku dayay ayadii inuu u sheego inay halkaas ay jiibsato maadaama uu rabo ninkii inuu uga soo aaro. Halkaas oo ninkii wax la soo dhacay, balse halkan waxaynu u jeednaa Liu oo ay gabadhi indhaha qabatay, balse waxa ku arkaysaa Yang Shi ayaa aad uga cadhoonaysa Liu maadaama uu ku aragtay inuu gabadh shaleemada keenay. Halkan waxaan arkaynaa Yang Shi oo seexatay maadaama ay isku diyaarinayso inay math system ama xisaabta ay dhibco fiican keento. Halkaas oo Khabiyo uu arkay iyadoo seexatay, balse Khabiyo ayay ku toostaa. Halkan waxaynu aragnaa iyagoo haddana habeennimadii isku yimiday. Halkaas oo Khabiyo rabo inuu ka caawiyo, balse Liu ayaa raali gelinaya maadaama arrinkii ay qalad u fahantay. Halkaas oo raaligelinta ay ka aqbalayso Yang Shi. Macalinkii ayaa isku dayay inuu ardayda u qabto tartankaas waxaa la isku dayay inuu qof walba uu iska saaro garamada, balse Khabiyo ayaa markuu garanka iska saaray waxa uu noqonayaa jirkiisu wada nabur. Halkaas oo macalinkii uu sheegayo been uu ku odhanayo xanuun ayaan qabaa, taas ayaa ii keentay. Macalinkii ayaa aad uga naxaya, balse macalinku wuxuu baadhaya inuu xanuunkii, balse uu waayaya. Habeennimadii waxa soo booqanaya saaxiibkii Khabiyo Liu. Halkaas oo Liu uu ka wareysanayo sidii uu ku soo gaadhay namuradan ama dhaawacan. Khabiyo ayaa u sheegaya in isaga dartii loo garaacay saaxiibkii. Halkaas wadana waxaynu aragnaa in Khabiyo iyo Yang Shi ay ku ciyaarayaan meel, balse macalinka uu ka cadhoonayo qanaaxayo. Halkaas oo biyo kar u hayo ku odhanayo, laakiin roob ayaa soo daaya. Markuu roobku soo doo, Khabiyo ayaa waxa ku soo kacaya xanuunkii. Halkaas oo uu xanuunsanayo, balse Yang Shi ayaa wax isku dayaysaa inay dhakhtar geyso. Kadib markii uu arko Khabiyo oo dhakhtarkii isagoo jiifa, ayaa irbadda ayuu aad uga cabsadaa, balse waxay arkaysaa kalkaalisadii oo markiiba ku muday, balse isagu laabteeda ayuu saa ugu dhegaya. Halkaas oo war u hayn goorta uu ku dhegay, balse markuu dareemo in uu ku dhegan yahay Yang Shi laabteedii ayaa uu aad u qeylaya. Kadib way ayar ayay soo baxayaan.